الصلاة خير من النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الصبح marka aad firaashka isku rogrogaysid, markaad hurdada macaansanaysid, markaad bustaha aad ku hoos jirtid oo mu'adinkuna dhawaaqayo uu leeyahay الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. weligaa naftaada ma weydiisay الصلاة خير من النوم maxay ka dhigan tahay? muxuu u leeyahay mu'adinku? micnaheegu waa maxay? maalinna ma isweydiisay maxay salaadu uga khayr badan tahay hurdada? soonnakaan nasanaynaa, sawtaa hurdadu cibaadada ah, sawtaa hurdadu wanaagsan. muxuu mu'adinku u leeyahay الصلاة خير من النوم؟ salaadaa ka khayr badan hurdada. nacam, salaadaa ka khayr badan hurdada. salaadu waxaad ajiibaysaa ilaahay oo kuu yeedhaya ayaad ajiibaysaa. hurdaduse naftaada ayaad u yeelaysaayood ajiibaysaa ood aqbalaysaa. iska sexo ayay ku leedahay. nacam, الصلاة خير من النوم. salaadaa ka khayr badan hurdada. maxaa yeelay salaadu waxaa ku reexaysanaya ruuxda, hurdadana waxaa ku reexaysanaya jidhka. ayaa khayr badan? ma ruuxdaa khayr badan mise jidhkaa khayr badan? الصلاة خير من النوم. nacam, waxaa khayr badan salaada. salaadu waa xayaa, waa nolol, waa reexo. hurdaduna waa dhimasho. salaadu waa nolol, dib baad u soo kacaysaa, ruuxdaadii baad noolaanaysaa, naftaadii baa ilaahay caabudaysa, jidhkaagii baa ilaahay caabudaya. hurdaad ka sara kacaysaa, dhimashaad ka sara kacaysaa. laakiin hurdadu waa dhimasho. nacam, الصلاة خير من النوم. salaadaa ka khayr badan hurdada. maxaa yeelay hurdada waxaa wadaaga mu'minka iyo kaafirka iyo munaafiqu, intuba way seexdaan. laakiin salaada waxaa tukada waa mu'minka keligii baa tukada, kaafirna ma tukado, munaafiqna ma tukado. الصلاة خير من النوم. dadkaa salaada subax tukanaya, dadkaa salaada subax aadaya ee masaajidka buuxinaya, kuwaasuu ilaahay xaqa waafajiyey. wejigoogu wuu nuurayaa, qalbigoogu wuu nuurayaa, wakhtigoogu wuu barakaysan yahay. farxad bay ku jiraan, waxay ku jiraan firfircooni bay ku jiraan, nadaafad bay ku jiraan. wakhtigooga ilaahay uu u barakeeyey. maxaa ka qurux badan salaada subax? salaada subax, salaada faradku qofka ilaaliya, ilaalinta ilaahay ayuu ku jiraa, fii dimmati illaah. nebigu waxa uu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam: man salla الصubxa fahuwa fii dimmati illaah. qofka salaada subax tukada, ilaahay xifdigiisa ayuu ku jiraa, dimada ilaahay. ilaahay baa ilaalinaya, waa faradkeega. salaada subax sunnaheega nebigu wuxuu inoo sheegay salى اllahu عalayhi wasalam labadaa rakcadood ee salaada subax ka horeeya
inay ka khayr badan yihiin adduunka iyo waxa ku dhex jira. salaada subax qur'aanka la akhriyayo ilaahay waxa uu ku tilmaamay inna qur'aana alfajri kaana mashhuuda. qur'aankaa la akhriyayo salaada subax malaa'igtaa soo xaadirta waa loo joogaa. maxaa ka fiican salaada subax? maxaa ka wanaagsan? nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ugu bishaareeyey dadkaa salaada subax tegaya janna ugu bishaareeyey nebigu calayhi الsalaatu wassalaam. waxa uu yidhi man salla albardayni dakhala aljanna muttafaqun calayh. qofka tukada labada qaqabow waa salaada subax iyo salaada casarka nebigu waxa uu yidhi ninka ilaaliya labadaasi si ziyaada u ilaaliya ma aha labada tukado inta kale ka taga ma aha. ninka labadaasi ilaaliya oo salaadaasi ayna ka tegina jamaacada ku tukada nebigu waxa uu yidhi dakhala aljanna jannada ayuu gelayaa. nacam naar ma gelayo qofka ilaaliya salaada subax. nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yaliju الnaara man sallaa qabla طuluuci الshamsi wa qabla guruubiha. naar ma gelaya buu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wassalaam qofka tukada cadceeddu intayna soo bixin waa salaada subax iyo inta ayna dhicin ka hor. rawaahu muslim. qofka ilaaliya salaada subax iyo salaada casar jannaduu gelayaa, naar ma arkayo. bal nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay inuu qofkaasi ku reexaysanayo maalinka aakhiro ilaahay aragtidiis. xadiiskii jariir ibni cabdillaahi radia allahu canh waxa uu yidhi nebigaan ag fadhinay sala allahu calayhi wasalam. nebigu wuxuu eegay dayaxa ayuu eegay habeen 15aadka oo dayaxu aad u iftiimayey ayuu eegay dayaxa nebigu calayhi الsalaatu wassalaam. markaasaa nebigu waxa uu yidhi wardadow rabbigiin ayaad arki doontaan sida dayaxaa si aad u arkaysaan oo kale. aragtidiisa wax inaga fuulayo ma jiro, wax inaga qarinaya. war waxaad ku dadaashaan buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam cadceeddu inta ayna soo bixin waa salaada subax iyo inta ayna dhicin ka hor salaadaasi ku dadaala buu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wassalaam. kadibna nebigu wuxuu akhriyey wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi wa qabla guruubiha. aayadda qur'aanka ilaahay uu leeyahay u tasbiixsan rabbigaa iyo salaada u tuko intayna cadceeddu soo bixin waa salaada subax iyo inta ayna dhicin ka hor oo salaaddii casara. sidaa awgeed dadkii waa wanaagsanaa waxay iskugu dardaarmi jireen salaada subax in la ilaaliyo. abudardaa wuxuu u dardaarmayay dadkiisii isaga oo firaashkii mowdka kor jiifa sakaraatulmowdka ayaa waxa uu lahaa salaada subax ilaaliya salaadaasi. nacam munaafiqiinta way ku culus tahay salaada subax, way ku adag tahay, ma karayaan. saasaa nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina ahqala salaatin cala almunaafiqiin salaatu alcishaa wa salaatu alfajr walow yaclamuuna maa fiihimaa laatowha walow yaclamuuna maa fiiha laatowha walow xabwan. nebigu waxa uu yidhi salaada ugu culus munaafiqiinta ku culus waa salaada cishaa'iga iyo salaada subax. hadday og yihiin waxa ku jira buu yidhi nebigu gurguurad ba ku iman lahaayeen sala allahu calayhi wasalam. muttafaqun calayh. sidaa awgeed nebiga markii loo sheegay sala allahu calayhi wasalam qof waa beriistay oo cadceeddii u soo baxday oon salaaddii subax ay hurdo ku dhaaftay waxa uu yidhi nebigu daaka rajulu baala الshayطaanu fii udunayh aw qaala udunihi. nebigu waxa uu yidhi kaasi salaaddii subax ka seexday waa qof shayطaanku uu dhagaha kaga kaadshay
ama uu dhegta kaga kaadsibu nebigu calayhi salaatu wasalaam. idan qofka muslimkii salaadaas subax wuu ilaalinayaa, horuu u seexanayaa, saacaddaas ayuu ku buuxsanayaa, dadku u sheegayaa, uu leeyahay itoosiya, uu ku dadaalayaa inayna dhaafin. maxaa ka qurux badan inaad firaashkaagii aad hurtid ood salaadda u oradid? maxaa ka qurux badan mu'miniintaasi salaada subax yimid inaad la tukatid? maxaa ka qurux badan wakhtigaa malaa'igtu ay imanayso inaad masjidka joogtid, ilaahay xusaysid, qur'aanka akhriyaysid? maxaa ka wanaagsan? alsalaatu khayru min annowm, salaada ka khayr badan hurdada. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.